kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha leh ee mar walba ku xiran shabakada solarportal.com, solarportal Facebook live iyo hadduu idin dhaafo mar walba waxaanu ku jirnaa dhanka iyo solarportal YouTube. xogaa cilada waxaa jira dhanka iyo Facebook live sida awgeed ayaa ayaamahan inta laga xalinayo dhankayga waxaanu ka wada socon doonaa wixii akhbaarada dhanka iyo YouTube-ka Solar Portal. Anigu sala socotaan ma sameeyo share iyo subscribe iyo like marnaba ma sameeyo sababtoo ah broadcasting caadi ayaan sameeyaa meesha ayaa dadku inta badan igala socdaan. Marka ilaahay baa mahadle ayaamahan dhibaatooyin aad u fara badan ayaa ka jiray waddanka Kenya qaasatan Nairobi iyo Mombasa. Sida awgeed saaka waxaan kusoo toosnay axad good news aad u wanaagsan. gabar dad badan ay yiraahdeen way dhimatay waa la aasay waa la gowracay waxyaalahaas ay sheegeen iyagoo hubin in gabadhii saaka 10 subaxnimo ciidanka bilayska magaalada Nairobi ay heleen. gabadhaas waxaa la yiraahdaa Xafsa Maxamed Luqmaan, waa gabar ganacsata 23 jir isla markaana ku nooleyd magaalada Nairobi waxayna ganacsanaysay dukaan ay ku leedahay xaafadda Islii ee Soomaalidu ay degto. Xafsa way nabad qabtaa, xogaa faraha iyo gacmaha iyo jug ka gaartay wajiga hore maana inta kale aad u fiican tahay. Stationka la geeyay kadibna qoyskeeda ayaa lagu wareejiyay. barnaamij ayaan ka sameeyay 2 maalmood ka hor oo qaabka Soomaalidu loogu ugaarsado magaaladaas. Arrintan runtii Ilaahay ka sokow qoyskeeda iyo booliiska sokow waxa aad badbaado u sameeyay waxa ay social media dadkii way wada kaceen publicity ayaa la sameeyay dowladii Kenya booliiskii Nairobi meel walba arrintan way gaartay. sida awgeed waxa qasab noqotay arrintan in ay xoog saaraan oo ay dayaan. I wish dadkii kale oo dhibaatooyinkan loo geysay sida marxuum Bashiir Maxamuud oo kale iyo dad gabadhii lagu dilay Nairobi Mombasa lagu dilay iyadana inay saas ahaan lahayd laakiin waqtigooda ayaa soo dhamaaday waxba lagama qabalo qadar ilaa ahayd. marka gabadhan waxay ku nooleed xaafadda la yiraahdo California State oo ku taala isla magaalada Nairobi. xaafadda laga soo badbaadiyay waxa la yiraahdaa xaafad ma aragtay oo isku raran oo xaafadaha ma aragtay dadka masaakiinta degan yihiin la yiraahdo Matobeni oo ku taala Nairobi. waxaana gabadhan laga waayay talaatadii hore sala socotaan salaasadii hore dukaankeeda oo ku yaala magaalada Nairobi xaafadda Islii oo horaan u sheegnay. waxaad arkaysaan isla ninkii hadda la soo qabtay iyo group kale 4 in ay meesha soo galeen ay hadlayeen. waxa kaloo hadda aan ka maqlay Nairobi xilligan in la hadlayo in dad Soomaali ahna ay gacan ku lahaayeen sababtoo ah inta badan dhibaatooyinka Soomaali hadaan ay nagu dhac meelba aan joogno waxa hoos socda wax kala ma ahan waa Soomaali kale dad doonaya dhuuntooda inay ka shaqeysiyaan oo gaajo ama dhib ka soo geysatay inay doonayaan dad kale dhibaato geliyaan. gabadhan aad loo dhibaatay waa la jir dilay. marka qaabka lagu helana qaab runtii cajiib ay ahayd oo hadda ayaan ka hadlayaa. madax furashada marka ay la weydiistay reerka gabadha waxay ahayd 5 milyan oo shilinka Kenyaatiga kaasoo u dhigmatay ilaa iyo 48 ilaa iyo 50 kun oo dollar. waxaa laga yaabaa qofka markuu wax afduubayo meelow doona ka afduubo qaab random ah muhiimad. random waxay tahay qof jidka iska maray qof iska afduubto. qofka waqti badan ayaa la gelinayaa waqti badan ayaa laga shaqeynayaa sida awgeed marka dambe ayaa la ogaanayaa qofka inuu lacag haysto iyo in kale. inta badan waxa la isticmaalaa saaxiibka xataa marka qaar qaraabada waxa la isticmaalaa dariska qofka la shaqeeyo qofku ahaada qofkan hadii la arko isagoo lacag badan xisaabinaya import export badan sameynaya dhoofin iyo dejin sameynaya dad ayaa la isticmaalay oo la leeyahay hana sheegina marka dambana lacagtana wax naga siiya aan isla shaqeysano. marka qoyska iyo booliiska siday xaqiijiyeen waxay yiraahdeen $1 ama 1 shilin gabadhaas laguma bixinin. arrinta sida lagu helana runtii cajiib ay noqotay oo booliisku ay saaka ay sheegeen. dadkii dariska la ah xaafadda isku raranka ee ku taala magaalada Nairobi ee magaceeda la yiraahdo Matobeni ayaa la yiraahdaa xaafadda sida ay booliisku ay sheegeen Matobeni in dadkii dariska la ahaa ay guriga albaabkiisa ka heleen ay yiraahdeen xusuus qor. booliiska ayaa yiri xusuus qorkaasoo markii out of curiosity ay doonayeen out of curiosity waxa way waxay rabeen inay arkaan meesha wax ku qoran. buug wuxuu iska caadi markay fureen waxay ka arkeen arrimo la xiriira qaabka loo afduubay qaabka lacagta loo weydiisanay qaabka isku ilaalinayaan inaan booliis la hadlin qaabka xilliga wax walba shaki ayaa galay. marka dadkii markay ay fahmi kari waayeen waxay sheegeen buugan qofka iska lahaa guriga ku jira u geliyay. markay guriga galeen gabadhii oo taa haysay meesha ka maqleen oo runtii dhaawacyo badan ayaa ku yaalay asbuuci la soo dhaafay salaasadii ilaa iyo haddana meesha lagu hayay kaligeed ayay ahayd. waxayna geliyeen
bahalkan jirgaanka la yiraahdo oo waad aragteen oo jerrycanka weyn la yiraahdo oo jirgaamada aan naqaano oo la jaray oo sawirkiisa aan soo geliyay solar portal ayay dhexda ka geliyeen dhaawacyada ugu badnaa waxay ahaayeen dhankan faraha oo meel ka murgacto oo kale iyo meeshan furuuraha dilaacsanaa laakiin alxamdulillah saa sawir ku aragteen aan soo geliyay saaka gabadhii waa la badbaadiyay markay meesha galeen gabadhii oo taa haysa ee maqleen kenyaatigi isla markii maba ogeyn sheekadan kama warqabin waa meelan tv oolin oo social media laga isticmaalin sidaa awgeed waxaa dhacday isla markii ay booliisku u yeeraan gabadhii sidaas lagu soo badbaadiyey markaasaa hore u sheegay ma jirto wax lacag ah oo reerka ay bixiyeen jirdilka loo geystay iyo soomaali oo fududaysay marka booliisku waxay soo bandhigi doonaan sawiro video telefono iyo waxyaalo kale siday sheegeen 24 saac soo socota si dadka ka qayb qaatay arrintan loo soo bandhigo qof walbana uu isaga ilaaliyo marka dad ayaa la yiri maaragtay ayaa yiri waa la dilay gabadha runtii xataa dad waaweyn oo culimo ah ku jira dad caamo ah qof walba anigu mar walba waxaan ka soo hadlayaan ogaa dad baa isoo weydiiyay gabadhii waa la dilay kalbiyaal isoo diray video marnaba ma aan soo gelinin ilaa ma reerka iyo booliiska laga helay akhbaarad saakana qofkii ugu horeeyay ama qofkii labaad maybe ayaa laga yaabaa waayo waxaan ka dhaxelay meesha police intelligence-ga oo Kenya qaybta Nairobi ayaan ka dhaxelay gabadhii la soo daayay taas macnaheedu waxay tahay xaqiiqay noqonaysaa laakiin dadka oo emotionka isticmaalaya waxaysan hubin isticmaalaya xataa qof waxaan u jeeday weyn oo macruuf ah dhahayo anaa aaskeeda ka qayb galay marka xafsooyinka waa la isku wareersan yahay marka gabar kale oo iyadana la joogtay ama la socotay oo xafsa la yiraahdaa jirta gabadhaas iyadana way nooshahay kullay inay ka qayb qaadatay in kale Allahu yaclam qof og male laakiin 24 hours soo socda way soo bixi doontaa arrintan marka laakiin dadku waxaan ku waanin lahaa waxaadan hubin ha soo dhigina xitaa haddaad soo dhigtaan hadday qalad noqoto ka saara raaligelin ka bixiya ka socda waayo reerka aad dhibaataynaysaan qof walwada niyijibinaysaan gabadhaas runtii arrinteeda gabar caana ma ahayn ganacsate iska ahayd laakiin waxa faa'iidooyinka laga helay oo mar walba aan idhaahdo social media ee Soomaalidan u sheego tan ayaa kamid ah haddii social media aan ooli lahayn cid ka hadlayd male warbaahinta ma soo dayn lahayn waa fair deal ahaan lahaa Soomaali laakiin booliisku shaqo fiican qabtay iyo nasiib wanaagan iyo waqtigeeda oon soo dhamaanin ayaa isku soo aaday sida aawgeed ayaa loo helay marka intaan feejignaanta ka hadlin oo aan barnaamijka soo afjarin waxaan u sheegayaa qof walba oo Soomaali ah hadduu arko qof kale Soomaali lagu dhibaateynayo meel kale in uu gacan ka siiyo laakiin dhibkii hadduu Soomaali u yahay maxaa laga qaadaya hadda report ay soo saareen booliiska South Africa Soomaali aad u badan ayaa lagu laayaa lagu afduuba lagu xasuuqa waxay yiraahdeen almost waan la yaabay 30 ilaa 35 Soomaaliya ka masuula طبعا Soomaaliga intuu imaad xabad ma tuuray laakiin qof kale oo ganacsi isku haystaan ama wuxuu doon xataa qabiil isku haystaan ayay madowga South Africaanka lacag yar intay soo siiyaan $300,000 soo siiyaan ayay leeyihiin qofkaas cun markaas la leeyahay burcad South African ayaa soo weerartay qof raaca male laakiin booliiska markii ay qabteen raggii dilalka sameeyay inta badan waxay ku laabataa telefono akhbaaraad codad qoraal la soo diray oo Soomaali kale ay tahay marka haddii anaga Soomaali ah enemy ama cadow aan isku noqono haddii dad kale ka faa'iideeyaan waxay leeyihiin qofkaas lacag badan oo haya ama xawaaladu ku fadhiya ama ma aragtay waxyaalaha sameeya daraad barnaamijkii aan sameeyay 10 points ayaan ku soo daray waa video ka hooseeya ee solar portal ku jira eega 10 points oo kaga badbaadi kartid in lagu afduubo haddaa ganacsi tahay arday aad tahay gabar aad tahay wiil aad tahay kaga badbaadi kartid kuwaas oo aan ka soo helay Talyaaniga oo ah meesha adduunka ugu afduubka badan ee waddanka Colombia ee ku yaala South America marka qofka Soomaaliga xataa ha aaminin lacagaha banaanka soo dhigin show of ha sameeynin yaa lagugu arkin si discreet oo qarsoodi ah lacagtaada iyo businesskaada qofna lama aamino haddii qof saaxiibka oo Soomaali ah uu fududeynayo in lagu afduubo oo lagu dilo dhibaato noqonaysa hadda gabar lagu haysto Mombasa kale oo Soomaalida gabar kale Soomaaliya la dilay ma laga yaabo inay disho maya laakiin way fududeyso qofka adiga aaminaysid ka shakin maysid saaxiibka kale haddaan saaxiibnahay aan ku dhaho nakeen meel baan isu raacayna ka shakin maysid aniga ayaa gaari ka degaya markiiba lagu afduubaya haddii aan lagu dilin ayaa nasiib leedahay marka feejignaanta intaan ku sii dheeraan barnaamij feejignaanta meesha ay ku jirtaa waxaad feejignaan ka ahaanaysaa wax walba Ingiriisku wuxuu yiraahdaa if it's good to be true marka run ma haddii sheeko qof uu ku yiraahdo iimaw $10,000 ku siinayaa oo saaxiib hoose aad tihiin waxna idin ka dhaxaynin waa halis ma ogid meesha lagu wado haddii qof uu kugu adkaynayo nakeen marba kula daba socdo iyo 10 arrimood ka hadlay mar walba halis ayaa ku jirta meeshaad aadaysid meeshaad u socotid meeshaad ka soo laabanaysid qofka reerkaaga ayaa markaa u sheegaysaa laakiin sheekadu hadday noqoto meel walbaan aadaya marka uma kala socna gabar iyo wiil iyo ganacsado uma kala socna waad u jeedaan nin dhalinyaro ahaa oo 35 jir ah ilaahay u naxariistay Bashiir Maxamuud oo sida loo dilay arxan darada loo dilay
oo aan iska ilownay gabadhan halis ayay gashay laakiin ilaahay baa mahadlay gabadhan qof ay tahay ma naqaano cid ay tahay ma naqaano interest kuma nihin laakiin gabar Soomaaliya ahayd waa in social media markii aan maqalno arrin baa dhacday la faafiyaa af Ingiriis aniga Twitter ku soo qoray Instagram ka Facebook meel walbo waa ka comment gareey xataa meelaha oo booliiska ay leeyihiin Facebookyada oo dhan cases kan in la dabagalo sababtoo ah iyaga xataa pressure ay dareemayaan haddii kala ganacsigu kala istaagaya isli ganacsigu ka istaagana qof kasta oo baqana wareer ayaa imaanaya waxaan kaloo aragnay video la wareejinayo oo Nairobi isli ka dhacay oo niman mooto wata oo intay meel soo istaageen xabad dad ku taagayaan aragnay xabadii kadibna dadkii telefoon qaatay nin Soomaali meeshii istaagna kuwii kale wayba carareen ninkii Soomaaliga meeshii istaagna frozen ayuu noqday dadku waxay lahaayeen muxuu ordi waayay muxuu isaga celin waayay qof xabad wato ama fake ama run data iska ma celin kartid qof hadduu xabad kula imaado waxa la sameeyaa gacanta la taaga abeed ayaa la yiraahdaa saan gacanta loo taaga telefoon ha qaato waad heli kartaa lacag ha qaato waad heli kartaa laakiin naftaada iyo tan reerkaaga ma heli kartid tan ugu daran waxay tahay naftaada ka sokow markii si arxan darro lagu dilo reerkaaga dhibaatada ugu weyn iyo xanuunka ka kabsan maayaan marka waxay tahay macnaheeda meelaha aad fadhiisanaysid iska ilaali teleefoonadan smartiga ah ee iPhone-ka iyo Android Samsung la soo bixin lacag xawaale marka ka soo baxaysid 100 jeer ayaan sheegay especially isli meelaha kale xaafadaha isku raranta ee ku yaala magaalooyinka aan nabadda ahayn marka kala soo baxaysid iska ilaali habeenkii wareega iska ilaali aroos hadaatiin group soo raaca ama uber soo raaca oo record leh ama waxa soo raacdaan maxaa la yiraahdaa bolt kan la yiraahdo marka meelaha ugu daran lacagta lagu tuhmayo qof walbana waa og yahay waa xawaaladaha xawaalad Soomaali waa la og yahay waxay aaminsan yihiin South Africa Angola Mozambique meel walba Soomaalidu macalkay inay lacag buuxdo markaad lacag ah soo qaadanaysid xataa arrangement samee qofka marka xawaalad laha ku dhehbeenka markaad soo xiraysid meel kale ku ballamo oo ka duwan meeshaas laakiin haddii lagu arko dad banaanka iska fadhiya shaatiicad iska wato adoo oo lacag soo qaatay oo jeebka san u soo gelay laafiyoonaya nasiib ayaad leedahay haddii lacagta ay ka qaataan way ku dilayaan waayo waxa isku dayaysaa lacagta inaad badbaadisid haddii nafsadaada loo yimaado qori ama bistoolo ama maxaa la yiraahdaa mindi la wato waxaad wadid $1 milyan wadid farax ka saar sababtoo nafsadaada ayaa ka muhiimsan laakiin meelahan hadda halaq mareenka noqotay waa inaad iska ilaalisaan smart ayaa la socdaa laakiin telefoonkaaga smartiga haddaa saan usoo qabatid oo saan u haysid jidka ku socotid oo loo jeedo iPhone u yahay ama expensive yahay waa lagu dhibaataynaya waxaan kaloon ku arkay hadda wadanka Turkiga oo kale waa meel nabad ah oo dhibaatooyinkaas u inaan ka jirin laakiin maalin walba meeshan Istanbul la yiraahdo Historia Mall oo kale nin saaxiibkay ah oo caan ah la yaqaano aniga asoo isla fadhino isla fadhino cafe fadhino kaamirooyin leh laptop iyo passport wax walba lugaheena dhex yaalaan ayaan laga qaaday lugaheena dhexdooda yaalin marka Soomaali haddaan ahayn waa isdayacnaa diracaan iska tuurnaa shaatiyadan tuurno wax walbaan sameynaa adduunka waxa lagu maraa smartness noocaas lagu maraa laakiin haddii ay istiraadii lacag baan jeeb ka soo bixinaya ama passport baan qaadanaya qof isoo gaaray male kan nasiib kale waa kan ku jeeb siibo oo kaa tago wax kaa xada haba ku dhibaateeye laakiin nafsadaada Afrika waxay ka tahay male qaasatan South Africa iyo Kenya waa ina extra vigilant ahaataan geeridu ogow markay adiga ka maqan tahay qof kale la joogtaa marka horta Ilaahay baa mahadlay Xafsa waa soo badbaaday qof walbana uu ku farxay laakiin waxaan u murugoonaynaa mar walba Bashiir iyo dadka kale la dhibaateeyay iyo wiilal kale ay wali afduuban marka sawiradooda qof walba ha soo geliyo ha yiraahdo hebel free san samee marka wadankan wax ka dhacaan oo dawladda ama mucaaradka involved u tahay annaga dhan dharkaan tuurana oo hadda maxaa u diiday at least qabiil ahaan aan isu leyno Soomaaliya aan is dhibaatayno siyaasadda isku dhibaatayno laakiin marka sheekada oo ajaanib soo gasho dibadda imaato dhibaato noo imaanayso aan ka faa'iido dadkeeni aan wixii aan soo gudbino aan iraahno wartanna qaban mayse hana laga qabto saas ay ku soconaysaa haddii kale waxa dhacaya xafsooyin badan ilaahay uu naxariisto Bashiir badan iyo gabadhii lagu dilay iyo wiilasha hadda xareysan marka ogow intaan barnaamij soo afjarin ogow qof adiga random ergan dhigayso random ku soo raadinayna random maxay tahay adoo meel iska laafiyona cid ku imaanaysa ma jirto waa qof la soo diray qof ku og ama qof ku doonaya in uu ku afduubay noqonaysa marka waxaba ka sii naxdin badan hadda Soomaali ayaa involved ku ah taasa qaracan ah oo maaragtay aad ka looga baqaya sababtoo ah yaad aaminaysa marka qof walaalka ah oo saaxiibka aad aaminsan tahay hadda CCTV-ga aan ka aragnay xabsa meesheeda waan u jeednaa ninkan markuu soo galay qof meesha fadhi Allahu yaclam qoftaas inay involved tahay in kale ma ogin anigu waxaan raacaa evidence police uu keeno un baraaca ama wax public ah yaalo oo la wada cadeeyay laakiin yaa markay saan isula hadleen madax isdheheen xataa waxa laga yaabaa inuu isaga hay is leeyihiin wax walba dhici karaan laakiin booliska sheegeen Somali people oo ay gabadha taqaano ayaa involved ugu ahaa gabadha shock ba ka muuqday waayo trauma waxay soo martay
talaadadii hore ilaa iyo maanta la haystay oo ma aragtay almost 1 week la haystay trauma soo gashay afkeedii dhan ay bararsanaa laakiin alxamdulillah hadda faraha maahay labadan fara maahe inta kale way ka fiican tahay marka qofka aad raacaysid qofka la sheekaysanaysid qofka businesska la wadaagaysid qofka weligaan lacag ha qaadanin wax kastoo ay kuu qaato appskan isticmaal hadda xagga joogta Embase isticmaal hadda meel kale joogto waxay isticmaashaa local digitalka isticmaal telefoon haddii lagu yimaado dhiib lacag dhiib wax walba dharkaaga si bedel wadaxda si nafsadaada la badbaadiya tan reerkaada la badbaadiya smart la noqda laakiin waxa ka horeeya qofka raacaysid aan ku celceliyo qofka raacaysid meesha u raacaysid muxuu yahay muxuu ku qaban doonaa muxuu ahaan doonaa ogow marka hana aamina qof Soomaaliya si kastoo ay haato especially gabdhaha haddii aad aragtaan qof maaragtay aroosyo iyo xafladaha iyo showga dhalinyarada ay sameeyaan laga soo baxo qof Soomaaliya baawar banaan kala tagan ma lihi qof Soomaali ka soo xun yahay ama Soomaali si jooga oo Kenya ku nooldeeyeen ama Soomaalida Soomaali ka yimaadeen ma lihi qof walba xun yahay laakiin aniga waxaan ka jeclaan lahaa Uber ama Bolt wado nin Kenyaati maxaan uga jeclahay waxaan uga jeclahay adiis record ayaa yaala hadhow ninkan waxa leeyahay qofkan waa la inteegaysa ugu dambeeyay qof qaaday taariikhdaada ayaa meesha laga arkaya xitaa hadii telefoonkaaga la xado laakiin qof meesha iska taagan stranger adii ma garan kartid qof magaciisa ay ku qoran tahay male halkan ugu qoran tahay male tuug baan ayaan kufsanaya waan ku afduubay ku qoran tahay male qof walba wuxuu ku leeyahay imisu ku geenaya kan 500 shilin ana 100 ku geenana kan ku leeyahay waxa laga yaabaa inaad iska raacdo laakiin kaliya ma wala raacaba waayo hal nin haduu yahay xataa 3 gabdhood aad iska cali kartaa wixii dhacab marka halista meesha waa taala laakiin waxa la doonayaa isdhiibiddan aan isdhiibno ayaa la doonayaa in la iska ilaaliyo smart la noqdo Soomaali hadaan meel walba adduunka ku taal waan ku bahdilanahay South Africa hadda sidii arigii carafada oo kale loo qashaa maalin walba marka hadda marka lagu yiraahdo 35% Soomaaliya ka dambaysa waaba ka sii qaracanta yaad aaminaysa marka xataa qof hortiisa lacag ma xisabsan kartid ama ma oran kartid xitaa ma aamini kartid meelo qaar kood xataa waxa jirta I'm sorry to say this ma magacaabay xawaalad laakiin xawaaladaha qaar kood xataa marka lacag weyn ay kugu soo dhacdo in dad qaar kood ila shaqo xataa waa dhici karta everything is possible data protection ma jiro details kale la sheegay xataa waxa jira xawaalado hadda kor lagu eeday baasabooro dad oo caana intay meesha geeyeen detailskeeda copy laga qaaday dadka loo diray bahalkii social media wareegay la arkay oo consequence aan lahayn waxa la arkay dad ma aragtay wixii xawaalada business ku dhaxmaray ana marqaati ka sheegay ma xawaaladaas waayo xawaalada iyada siyaasadeeda iyo mas'uuliyad kama aha waxaas laakiin waa hal tufaax qurmo kala waa xawaalooyinka oo Soomaaliya ku yaala kamid ah arimo lagu sheekaystay xawaalada dhexdeeda in social media maalinta lagu soo qoray ana indhayga saar marqaati ka aha marka xawaalada mas'uul ma ka tahay ma ka mas'uul xawaalada marka qof xun oo shaqaale ah oo disgruntled employee haduu yahay shaqo kuma marka xataa marka saas sameeyay sidoo kale iska ilaali lacag badan 10 kun 20 kun haday ku soo dhacdo oo goormaan qaadanaya xilligaas aan idin imaanaya shanta kale maan soo doonay hadii raad wax walba possibility waa qofkan waa bani aadam temptation ay gali kara meelaha qaar kood ma laga yaabaa arimahaas inay ka dhacaan wadamada Carabta iyo very unlikely inay ka dhacaan maarta wadamada Carabta sababtoo maxay tahay security-gooda iyo qof walba meeshu maray waa la ogyahay laakiin meelahan Afrikada haday ahaan leeyahay South Africa haday ahaan leeyahay Kenya haday ahaan leeyahay Angola Mozambique oo kale everything is possibility qof ayaa jooga sida South Africa lagu soo sheegay oo kale ay booliska sheegeen qof ayaa qof kale la hadlay wuxuu leeyahay ninkii 20 kun oo soo dhacday goorma soo dooranaya adaaba tiri wala lacagteed waxaan soo dooranaya 5 galabnimo by the time transaction lagu sameeyo 530 baawur xagga yaala xawaalada shaqo kuma leh hadoo hadii loo yimaado wixii dhiin ani ma lihi xawaalada taas sameeysa absolutely hadalka yalla fasiranin ma lihi laakiin everything is possibility waxa la doonayaa xataa inaad tiraahdo walaal lacagta ii shaqaad caawa ayaan xaafadada kugu imaanaya meeshu ka sugayay 8 akala uu ka sugayay 5 gurigiisa loogu tagay warnay waa soo hormaran leeyahay marka waa smartness la ciyaaray laakiin ma aha dadka xawaalada lacag loo soo diro waxaan filayaa 99% dhibic inay dad decent yihiin shaqadooda si professional u sameeyaan laakiin waxa jira bad apple wax la yiraahdo tufaax xumaaday ama malaayga badda hal malaay ayaa qurmay ayaa jira marka ugu dambeyn waxaan ku soo afjarayaa intii dhimatay oo Soomaaliya ilaa naxariis South Africa ama meel walba oo dabin loo dhigay laakiin qof walba sidoo smart u yahay ayuu ku badbaadayaa qurbahan meel ay joogto meel lagu badbaaday ma jirto wadankeena qarax aan lagu badbaadaynin iyo qurun dibadiina in lis afduubto annagii aan isku noqono marka masiiba nagu dhacday masiibadana waa dhiigi aan dadina 30 sano ugu dambeeyay ilaahay hana badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed aan meel walba adduunka aan joogno marka waxaan leeyahay ilaahay caafiyo gabadhan walaasheena Xafsa Maxamed Luqmaan social media aan ku baranay iyadoo dhibaataysan ilaahayna maanta ka soo badbaadiyo Bashiir iyo intii kala dhimatayna ilaahay jannada ka waraabiyo dhiig Soomaaliyeed inuu sanbay meel ugu daatana waxaan dhihi karaa mas'uuliyadda qof walba Soomaaliyeed saaran tahay live Facebook iga halaysan waan ka cudur daaranayaa inta ayaan ka soo gelayaa inta igala socda aniga subscribe na idin weydiin maayo like ishana idin weydiin maayo lacagna kama sameeyo YouTube
haddii kan bun haddii la waayo bariiskiis kana usoo bedesha maahane wax kale oo igu dabal ma jirto Facebook live-kii ayaa error iga soo saaray waan soo salaamaya mar kale wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu